bismillaahi raxmaani raxiim ismaqal iyo daawashaha boon halkani waa channelka halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo iyo khudbad uu jeediyay ayaan idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud iyo madax ka tirsan xisbiga UPD oo ku wajahan magaalada Kismaayo daqiiqadaha soo aadanna ka degaya magaaladaasi sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo gaariya Kismaayo kadib safar ay uga baxeen magaalada muqdisho madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani wakiil cusub magacaawda dalka Sweden qodobada ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 10 bisha 10 Oktoobar 2019 u diyaar garooba saaxiibayaal daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan channelkan halbeega wararka subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkana si share gareeya saaxiibayaal warkeena inta badan waxaan diiradda ku saari doonaa wufuud eerka caalamiga ku soo qulqulaysa magaalada Kismaayo si ay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maanta barqadii magaalada Kismaayo waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani wafdigaasi waxay ka soo kicitimeen magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxaana wafdigaasi hogaaminaya madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani wafdigan ayaa waxa uu gaarayaa in ka badan 50 xubnood oo heer caalami ah waxaana ku jira wasiiro ka tirsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani golaha wakiilada maamulkaasi iyo madaxweynaha hore ee maamulka Puntland Farole wariyaal ayaa ku welinaya safarka madaxweynaha maamulkaasi waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo lagu soo dhaweeyay si heer caalami ah waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay shacab loo diyaariyay soo dhaweynta iyo madaxda ugu sareysa maamulkaasi Jubbaland waxaana kamid ah madaxda soo dhaweysay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ku-xigeenadiisa garoonka ayaa waxaa joogay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan kuwaas oo diyaarsanaa soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani kuwaas oo maalmo ka hor gaaray magaalada Kismaayo si ay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha maamulkaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waxa uuna ka hadlay soo dhaweynta diiran ee maanta loogu sameeyay magaalada Kismaayo waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan qaabkii quruxda badnaa ee ay u soo dhaweeyeen madaxda maamulka Jubbaland Saciid Cabdilaahi Dani wafdigan ayaa waxaa loo galbiyay guriga martida ku yaala magaalada Kismaayo kaasoo maalmihii la soo dhaafay ku sii qulqulayeen wufuud heer caalami ah kuwaas oo ka qayb galaya calaamasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland diyaaradan ka soo kicitay magaalada Garowe ayaa waxaa si toos ah u aaday magaalada Kismaayo iyada oo soo marin magaalada Muqdisho waxaana jiray amar ka soo baxay kolore dowladda federaalka Soomaaliya taasi oo ku sheegayso dowladdu in diyaarad walba ay tagaysa Kismaayo ay soo marto magaalada Muqdisho hase yeeshee arrintaasi ayaan suurtagelin oo maanta magaalada Muqdisho waxaana soo marin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani kaasoo toos u gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana halkaasi uu ka qayb gali doonaa calaamasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta waqti ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan Farole iyo waqti ballaaran kale inaad maanta loogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeedaba kulli aan idin hayno waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii iyo dhulkiinii aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhimaatinka aad noo timaadeen iyo safarka aad u dheer ilaa iyo meel aad fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayna culayska iyo miisaanka uu lahaa waxaana rajaynayaa insha allahu dhimaatinkiinaani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan isu nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne ku soo dhawow Kismaayo aad baan kaaga mahad celinayaa imaatinka adiga waftigaaga runtii aad baan ugu faraxsanahay sida diiran oo dowlad iyo shacabba maanta nala soo dhaweeyay waan ka mahadnaqaynaa waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer u noo soo booqday inaan annagana u soo booqanno la wadaagno farxadaha iyo murugadaba waxaan rajaynaynaa haddii ilaahayna muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay Jubbaland ka jiray aan
wax ka galno haddii ilaahay idmo deegaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah dowladda Soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada Soomaaliyeed loo adeego waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto waxaan ku kalsoonahay ilaahay idinkiis in wax kastoo kala aragti duwanaana ee xal waara laga gaari doono horumar iyo wanaag iyo dawladnimada wadadeeda la qaadi geesta kale Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Kismaayo si ay halkaasi ka qayb galaan caleemasaar loo sameeyo madaxweyne Axmed Madoobe wafdi ay hogaaminayaan madaxweynaha hore dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ay wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa ay ka duuleen magaalada Muqdisho garoonkeeda waxaana ay ku wajahan yihiin magaalada Kismaayo waxa ay ka qayb gali doonaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa hadda daqiiqada ka hor aan la hadalnay wariyaal ku sugan magaalada Kismaayo waxaana ay sheegayaan in halkaas laga dareemayo soo dhaweynta loogu jiro madaxda ku soo wajahan magaalada Kismaayo waxay marti gelinaysaa wufuud heer caalami ah kuwaas oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland geesta kale madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna hogaamiyaha xisbiga UPD ayaa waxa uu ku wajahay magaalada Kismaayo waxaana halkaas uu ka qayb gali doonaa caleemasaar loo sameeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu ku biiri doonaa wufuudii horay u gaartay halkaas ugu dambeeyay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kol hore soo saartay amar ah inaan Kismaayo la tagi karin caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasina laga qayb qaadan karin hase yeeshee wafdi ku jiraan golo wasiiro oo gaaray magaalada Boosaaso ayaa waxa halkaas kula kulmeen madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani kaasoo ay kala hadleen inuu san tagin magaalada Kismaayo fariin u soo dhibay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo halkaas geeyeen hase yeeshee Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ku gacan sayray dalabkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu gaaray go'aan ah inuu gaaro magaalada Kismaayo kana qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa wajigabax ku noqonaysa wufuudan ku sii qulqulaysa magaalada Kismaayo arinta ayaa waxay ka qayb galayaan caleemasaar madaxweyne dowladda isna qoonsaneen waxaana kol hore warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay inaysan aqoonsaneen doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo taasi oo lagu doortay hogaamiyaha haatan la caleemasaarayo ee Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe wafdigan gaaray magaalada Kismaayo iyo kuwa hadda ku wajahanba waxa kamid xildhibaana ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana dowladdu ay dhibaatada u xoogan wajahayso ay tahay xildhibaanada ka tirsan dowladda ee tagaya magaalada Kismaayo waxaana xildhibaanadu ay jabinayaan amar kol hore dowladda federaalka Soomaaliya u soo saartay waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba la fasaxay duulimaadii tagi jiray magaalada Kismaayo si toos ah ay diyaaradu haatan ugu qulqulayaan magaalada Kismaayo waxaana gaari halkaasi dadyo kala duwan kuwaas oo ka baxaya magaalada Muqdisho waxaase warar hoose in holina sheegayaan in wufuud kale oo heer caalami ah ay ka imaan doonaan dalka dibadiisa waxaana qorshuhu yahay inay Kismaayo tagaan su'aasha la isweydiinayo waxay tahay ma waxay soo mari doonaan magaalada Muqdisho mise waxay toos tagi doonaan magaalada Nairobi dalkaas magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland diyaarad siday Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxay ka soo kicitay magaalada Nairobi kol hore waxaana ku degtay Kismaayo iyadoo aan soo marin magaalada Muqdisho waxaana diyaaradaasi ama shirkadda Juba Airline oo diyaaradaas ka leeday laga laabtay ruqsadii ganacsi oo ay wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya kol hore siisay hase yeeshee wararka Kismaayo ka imaanaya dib ugu laaban waxay ku soo waramayaan in hadda uu gaaray madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana sidoo kale magaalada ku soo wajahan hadda wararku ay sheegayaan Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame guud ahaan ammaanka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu yahay mid si weyn loo adkeeyay waxaana gabaanba ku jira dhaqdhaqaaqii guud ee magaalada Kismaayo waxaana magaaladaasi laga dareemayaa caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe kol hore ayaa magaaladaasi waxaa ka dhacday doorasho aan loo wada dhameyn waxaana Kismaayo ay yeelatay saddex madaxweyne waa Cabdinaasir Seraar Cabdirashiid Xadig iyo
axmed maxamed islaam axmed madoobe. dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaysan madaxdaasi aysan aqoonsanayn, waxaana mar sii horeysay dowladdu ay soo saartay habraaca loo marayo doorashada dowlad goboleedka Jubbaland. hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa la ogeyn haddii la caleemo saaro madaxweynaha maamulka Jubbaland halkay wax ka bilaabi doonto iyo qaabka loola shaqeyn doono madaxweynaha maamulka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. beesha caalamka ayaa waxay ku talinaysaa in khilaafka Jubbaland lagu dhameeyo wadahadal. hase yeeshee dowladda federaalk soomaaliya madaxda hogaaminaysa ayaa waxay iska dhigatirayaan dalabka beesha caalamka oo ahi in miiska wadahadalka lagu dhameeyo khilaafka jira ee dowladda federaalk soomaaliya kala dhaxeeya maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. oo aad ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka saaxiibayaal, intaasi ayaan kusoo koobayaa. nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.